بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دوادا برنامج كينا نصيب سر رمضان oo maalin walba marka laga reebo maalmaha jimcaha aad kala socotiin YouTube-ka shirkadda GoTurkan Study waa barnaamij aan dadka ku weydiino su'aalo kadibna aan ku guddoonsiino abaalmarino oo qaali ah marka waa su'aalo iyo jawaabo dadweynaha ayaan u bandhigaynaa insha Allah aan fiirino qofka ugu horeeyo su'aasha ku soo aadi doonto marka hore ku soo dhawo barnaamijka tijaabi nasiibkaaga ama nasiib sar Ramadan adoo magacaaga ku bilaabayo أنا مقعد كبلاوي سياد علي راوي وكدوا تجاوز أيه سيادو هل كان حكوا جري نمبره هل حبك صوب بحثه سؤال أنا صارن سؤال نمبر أفر أكون صوب بحي سياد نمبر أفر وحكوا حسن ساعد بيج بن عنك ودنكي يوكيا له ساعد بيج بن ها ودنك إندونيسيا مايا إنجليزيا هديات إنجليزك يوكيا لا ساعد بيج بان وكجوابي أول مرنتي سنة ونقول ليه مركو هراء كسر دوا برنامجك بسم الله وأنا كله واحد هذا ما قاعد بلاويه عبد الله ساق أحمد هاي عبد الله هل كان أفر نمبر أكجرو نمبر بسؤال برأسن صباح لمبرشن أكو صباح ذي لمبرشن وحكو حسن dagaalka labaad adduunka bisha ayuu dhacay dagaalka labaad ee adduunka bisha uu dhacay magaceeda laga rabaa dagaalka labaad adduunka wuxuu dhacay bisha shanaad maya ku naqso weli bisha sideedaad weli waxaa ku dhiman saddexaad bishii 12aad oo maasan tahay maadan haleelin soo dhawo insha Allah marka hore adoo magacaaga ku bilaabo ku soo dhawo barnaamijka aad iyo aad ku dhawahay magacaygu waa Shaafici Cabdi Cali Shaafici oo afar su'aal ah halkan ku jirto number soo baxso su'aasha saa ku sheegno Shaafici number 3 ku soo baxday number 3na waxa ku xusan waxaad sheegtaa caasimadda dalka Sacuudiga caasimadda dalka Sacuudiga waa Riyaad waa saxan yahay caasimadda dalka Sacuudiga waa Riyaad hambalyo waa guuleystay تجاوي نسيب كاغا سدح سؤال أنا هاري نمبر صباح صو نمبر شن أكوسو بعد نمبر شن وحاكو حسن دجال كلابات إيه أدونك بيش أود على جاروا بيش أود على مجا هذا دجال كلابات إيه أدونك أنا جو مجا أحمد بن عبد الله حدان جات أسكوديو وأود على كون سجا كان بيشي أو بيشي أغسطس كون سجا بقول أفرتني أو سدح جيرا ما أغسطس ما دعين كون نقصولي ودو ده جولاي وداعي وما سنتاي مادن هليلين aan fiirino qofka xigo magacaada ku bilaabayo Salmaan Maxamed Cali Salmaan oo halka number ku jiro ka soo baxso su'aalan ku weydiinina wixii kugu soo aad leedahay number 2 waxa ku xusan waxaad sheegtaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inta nabinimada loo magacaabin shaqooyinka uu qaban jiray nabinimada ka hor shaqooyin nooc ayuu qaban jiray nabiga raay looana ma kow haye iyo how kale waa laba shaqo qaban jiray mid waa sheegtay mid ku dhiman taas waa ma santahay maadan ugu horeen adoo magacaaga ku bilaabo barnaamij soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawahay magacaygu waa Cabdiqani Xadan Cabdiqani oo halka number ku jiro lambar soo baxso su'aalan ku weydiinayna iska fur number 2 waxa ku xusan waxaad sheegtaa فرعون حاسكيسا مقعيدا فرعون حاسكيسا هاي سودو ماذا هليلين ما هتسند هل كان نمبر كبحثو نمبر كاسي سؤال شو كجرتك جوابي دونتا نمبر 1 waxaa ku xusan فرعون حاسكيسا مقعيدا laga rabaa bas فرعون حاسكيسا muslimad ayay ahayd magaceeda sheeg qaldaha Maryam maya مريم عيسى هو يدي سواي آسيا همبليو فرعون حاسكيس وحال يجري آسيا همبليو وجولستي سوسيا والمرين تي سي هذه صاحبك برنامجك وجولستي مانت أما سنتين هاي سدو إن شاء الله هاي صاحبك مقعك بلا برنامج سدو مقعي عبد الله سعيد كله هاي برنامج هاي لا نمبر متك بحثه سؤالك ويديننا نمبر شن waxaa ku xusan dagaalka labaad ee adduunka bisha ayuu dhacay bisha uu dhacay magaceeda laga rabaa
sanad ma lagaa rabo bisha keliya lagaa rabaa tijaabi nasiibkaaga isku day wuxuu dhacay bishii shanaad maya isku day weli waqti waa haysataa bishii toddobaad mar saddexaad isku day barnaamijkan waa kaa dhacayaa bishii labaad waa mahadsan tahay ma aadan helin maxamed nuur walaa magacay okay maxamedow barnaamijka wuxuu waay lambaraa baxsanaysaa su'aalaan ku weydiinaynaa lambar labo waxaa ku xusan nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam intaan nebi laga dhigin ka hor laba shaqo ayuu qaban jiray shaqooyinka uu qaban jiray sheeg nebinimada ka hor bismillahi raxmaan raxiim su-aasha jawaabta haddaan isku dayo shaqada ugu horeyso ariyuu raaci jiray shaqada labaadna ganacsi u ahaa maasha allah hambalyo uu ka jawaabay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam nebinimada ka hor wuxuu samayn jiray ari raacna wuu ahaa ganacsadana wuu ahaa hambalyo waa maasan tahay ka qaybgalkaaga insha allah haye magacaa ku bilaabay soo dhawow maxamed cabdi maxamedow waxaad sheegtaa dagaalka labaad adduunka bisha uu dhacay bishii lixaad weli ma haysid 1945 sanad ma lagaa rabo bisha la sheeg may waa maasan tahay maadan haleelin magacaada ku bilaaba marka hore magacayga waa liibaan aadan ibraahim liibaan waxaad ka sheegtaa dagaalka labaad ee adduunka bisha uu dhacay haddaan isku dayo September hambalyo uu ka jawaabay dagaalka labaad ee adduunka wuxuu dhacay bish September waa bish 9aad soosi awalmarintii hambalyo liibaan waa maasan tahay halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tijaabi nasiibkaaga oo aad ka daawataan maalin walba marka laga reebo maalimaha jimcaha youtube-ka shirkadda Go Turkan Study balanteenu waa subscribe like and share. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.